wax badan waxaan ka soo sheekaynay raggii geesiyada ahaa ee diintan dhiigooda iyo naftooda u horay, balse maanta waxa aan kaga sheekayn doonaa haweeney samaysay wax ay samayn kari waayeen ragga. Haweeney u dhiganta kumanaan rag ah, cadowga islaamkana jab xoogan gaarsiisay, iyada oo keligeed ah. Dagaalkii Axzaab keligeed ay ilaalinaysay hal dhufays, heer ay gaalada u maleeyeen dhufayska inuu ku jiro ciidan fara badan geesinimadeeda awgeed. Marwada aan ka hadlayno cid kale ma ahan, waa suubanaheena Muxamed sallallahu calayhi wasallam eedadiis, kana mid ah marwooyinka Carbeed. Waa Safiya bintu Cabdimudallib. Waa marwo aragti dheer, ragguna ay kumanaan jeer ku xisaabtami jireen. Waa saxaabiyad geesiyad ah. Waa marwadii ugu horeysay oo nin gaal ah disho iyada oo difaacayso diinteeda. Waa marwo go'aan adag, taasoo dhashay geesigii ugu horreeyey oo seef u siibto Alle dartii. Aabaheed waa Cabdimudallib oo nebiga awowgiis ah, kana mid ahaa hogaamiyayaasha Quraysh. Hooyadeed waa Haala bintu Wahab oo la dhalatay nebiga hooyadiis Aamina bintu Wahab. Ninkeedii hore wuxuu ahaa Xaaris binu Xarbi oo la dhashay Abu Sufyaan oo ahaa hogaamiye Quraysheed, balse waa uu ka dhintay. Kadibna waxaa guursaday Al-Cawaam bin Khuwaylid oo la dhashay Khadiija bintu Khuwaylid oo ah hooyada mu'miniinta. Wiilkeedu waa Zubayr bin Al-Cawaam oo ah u gargaaraha suubanaha sallallahu calayhi wasallam. Sharaf intaas ka badan oo ay naftu jeceshahay miyaa jirto? ninkeeda Al-Cawaam bin Khuwaylid markii uu ka dhintay wuxuu uga tegay wiilkeeda yar ee Zubayr ah. Isaguna waxay ku soo korisay qalafsanaan iyo xoog iyo geesinimo iyo dagaal. Waxay u diri jirtay meel walba oo laga cabsado. Haddii aragto inuu ka warwareegsanayana si daran ayay u garaaci jirtay. Heer mid ka mid ah adeeradiis uu yiri, ma sidaana loo garaacaa ilmaha? Waxaad u garaacaysaa si naceeb ah ee uma garaacaysid si hooyanimo ah. Markaas ayay si xanaaq ah ugu jawaabtay iyada oo leh, qofkii dhaho waad nacday been ayuu sheegay. Waxaan u garaacayaa si uu u noqdo qof caqli badan, ciidankan uu u jebiyo, hantidana uu noogu keeno. Markii la soo saaray Nabiga sallallahu calayhi wasallam, isaga oo dadka u digayo una bishaaraynayo, dacwadana ka bilaabayo ehelkiisa, ayuu kulmiyey reer Bani Cabdimudallib, raggooda iyo dumarkoodaba. Markaas ayuu yiri Nabiga, Faadima bintu Muxammadey, Safiya bintu Cabdimudallibey, reer Bani Cabdimudallibow, anigu waxba idinkagama qaban karo Alle xaggiisa. Kadibna waxa uu ku booriyey Alle inay rumeeyaan oo risaaladiisa qaataan. Safiya waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee diinta ka qaatay Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Alle markuu amray nabigiisa inuu u hijroodo magaalada Madiina, Safiya waxay ku jirtay dadkii hijrooday iyaga oo diintooda baxsad la ahaa. Safiya inkastoo ay 60 jir ahayd, haddana furimaha jihaadka waxay ku leedahay xasuuso fara badan oo aysan taariikhda marna iloobi karin. Maalmahaas ay cajaa'ibta ka dhigtay furimaha dagaalka. Waxaan ka soo qaadan doonaa 2 qiso oo keliya: dagaalkii Uxud iyo dagaalkii Axzaab. Maalintii Uxud, iyada iyo qaar ka mid ah dumarka muslimiinta ayaa u baxay jihaadka, iyaga oo biyaha u waday ragga dagaalamayo, waraabinayo midkooda ooman, falaaraha u afeynayo, hubka halaaban u toosinayo. Intaas waxaa u dheeraa iyada waxay daawanaysay oo kor kala socotay dagaalka. Taasna la yaab ma lahan oo furinta waxaa taagan wiilkii ay dad u tahay Muxamed bin Cabdillah sallallahu calayhi wasallam iyo walaalkeed Xamza iyo wiilkeeda Zubayr. Safiya iyada oo daawanayso dagaalka ayay aragtay muslimiintii oo ciideeyay suubanaha dhinaciisa, gaaladana ay rabaan inay dilaan. Markaas ayay tuurtay weelkii ay biyaha ku waday. Fagaaraha dagaalkana waxay u soo gashay sidii libaaxa dhadiga ah oo dhallaankiisa la weeraray. Ciidankii soo jabay mid ka mid ah ayay ka qaadatay waranka, iyadoo kusii furanaysay wado, kuna qeylinaysay, hoogayaal, ma waxaad ka jabteen rasuulka Alle? Nabiga sallallahu calayhi wasallam markuu arkay ayuu ka cabsaday inay aragto walaalkeed Xamza oo lagu diray dagaalka. Gaaladuna ay suurad xumeeyeen. Markaas ayuu wiilkeeda Zubayr ah u diray. Zubayr ayaa markaas ku yiri, hooyo laabo, hooyo laabo. Waxay ku tiri, iga leexo, hooyo kuma ihiye. Wuxuu ku yiri, Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa amray inaad laabato. Waxay tiri, sabab? Waxaan maqlay in si xun loo dilay walaalkay, arrinkaasna waa Alle dartii. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa Zubayr ku yiri, ka leexo.
markuu istaagay dagaalka ayay Safiya aragtay walaalkeed oo la jeexay calooshiisa oo beerkiisana bannaanka la keenay, sankana laga jaray, dhagahana laga gooyay. Alle ayay dembi dhaaf u weydiisay iyada oo leh, arrinkani waa Alle dartii, raalli ayaan ku ahay xukunka Alle. Wallaahi waan sabri doonaa, waana ajir xisaabsan doonaa insha Allah. Arrinkaas wuxuu ahaa dagaalkii Uxud, bal aan hadda u imaanno dagaalkii Axsaab. Nabiga sallallahu calayhi wasallam caadooyinkiisa waxaa ka mid ah marka uu go'aansado inuu duulaan qaado, dumarka iyo carruurta wuxuu geyn jiray meel gooni ah si aan loo daba marin inta uu ka maqan yahay magaalada. Dagaalkii Axsaab, dumarka iyo carruurta iyo eedadii Safiya wuxuu isugu geeyey dhufays aad uga fogaa magaalada. Xilligaasna ragga muslimiinta ah waxay ilaalo ku hayeen godka Axsaab, iyagoo hortaagnaa Quraysh iyo xulafadeeda, waxayna isku iloobeen carruurtii iyo dumarkiiba. Xilli habeen ah ayaa Safiya waxay maqashay qof socdo, dhegta ayay u raaricisay, si toos ah ayay u fiirisay. Markaas ayay aragtay nin Yahuudi ah oo u soo socdo dhanka dhufayska, kaasoo rabay inuu jaajuuso dhufayska iyo waxa ku jiray. Safiya waxay ogaatay inuu jaajuus u yahay tolkiis, rabana inuu ogaado dhufayska inay ku jiraan rag iyo in kale. Nafteeda ayay ku tiri markaas, Yahuudi reer Bani Qurayda, Nabiga ayay ballanta uga baxeen oo Quraysh iyo xulafadeeda ayay uga heliyeen muslimiinta. Iyaga iyo annagana inooma dhexeeyo qof muslim ah oo inaga difaaco. Rasuulka Alle iyo ciidankiisana waxay ilaalo ku hayaan furinta. Ninkan hadduu arrinkeena u gudbiyo Yuhuudda, waxay khafaalan doonaan carruurta iyo dumarka, taasna muslimiinta ayay dhib ku tahay. Go'eeda ayay madaxa ku duubatay, sidoo kalena dhexda ayay xiratay, garabkana waxay saaratay bud, iyadoo rabtay ninkaas inay ka takhalusto. Nasiib wanaag, sidii maska oo kale ayay madaxa uga garaacday ninkii ilaa uu ka naf baxay. Markaasna madaxa intii ka jartay ayay saartay meesha ugu sarraysa dhufayska. Dadkii la socday ninkaas ee jaajuuska uu ahaa ayaa iyagana rabay inay soo dabagalaan saaxiibkood, balse waxay arkeen madaxa saaxiibkood. Markaasay dhaheen, waan ogeyn Muxamed inuusan ka tegaynin dumarka iyo carruurta ilaalo la'aan. Waynay iska laabteen. Safiya bintu Cabdimudallib, Alle raalli ha ka noqdo, waxay tusaale cad u tahay gabar walba oo muslimad ah. Wiilkeeda ayay u tarbiyaysay si wanaagsan. Walaalkeed Xamza ayaa shahiiday, si wacan ayay u sabartay. Waxa ay soo martay xilliyo adag, balse waxa ay noqotay marwo geesiyad ah oo caqli badan. Kitaabada taariikhda ahna waxaa ku qoran, Safiya bintu Cabdimudallib waa gabadhii ugu horreysay oo muslimad ah oo nin gaal ah disho.